musharax Saciid Cabdilaahi Dani oo taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolada Bari. Warkani waxa inoo haya Maxamed Bilegeele. musharax Saciid Cabdilaahi Dani oo kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay. waxaana musharaxa markii diyaaradii waday ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso uu mid u salaamay dadweynihii soo dhaweynayay, iyadoo soo dhaweynta musharaxa ay ka qayb qaateen mas'uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Boosaaso, kuwaas oo luuxayay boorar ay ku xardhan yihiin sawirka musharaxa. waxaana soo dhaweyn kadib musharax Saciid Cabdilaahi Dani loo galbiyay hoyga uu ka degi doono magaalada Boosaaso. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo waxgaradkii soo dhaweeyay musharaxa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in musharaxa uu yimaado magaalada Boosaaso. xildhibaan ahna musharaxa dowladda federaalka ee 2016 mudane Saciid Cabdilaahi Dani. run ahaantii Saciid Cabdilaahi Dani taariikhdiisa cidna looga sheekayn maayo. waa mar maamul ahaan jiray. anigu waxaan ahaa generationkii uu soo saaray iyo ciyaalkii uu wax soo baray. waxaana aaminsanahay Saciid inuu wax weyn ka keeni doono doorashada 2016. ma aha maanta kaliya soo dhawaantiisu, hadda ka hor waxa loogu sameeyay xaflad qada ah oo hadday ilaahay dadka oo dhan ay ka soo qayb galeen oo Boosaaso iyo Qardho iyo deegaamada Puntland oo dhan loogu sameeyay. haddana wuxuu rabaa inuu dhex maro deegaanada Puntland oo hadday ilaahay uu ka soo jeedo. waxaan leenahay soo dhawow mudane madaxweyne soo dhawow. waxaan leenahay soo dhawow, waa ku soo dhaweynana 114 ku soo dhawow dalkii aad ka dhalatay weeye. ma ahayd kulley nin dalka muddo badan ka shaqeynaya baa tahay. waxaan leenahay magaalada Boosaaso ku soo dhawow musharax, waa magaaladaadii, waa xaruntaadii, waa maxay tahay xaruntii aad ka asaastay maxay tahay iskoolada, jaamacadaha iyo dhammaan ganacsiga intaba. sidoo kale waxaan leenahay cid allaale iyo musharax kastaba waa u furan tahay magaaladan, waana ku soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay mudane musharax ku soo dhawow magaalada Boosaaso. musharax Saciid Cabdilaahi Dani oo isna dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay maatinka magaalada Boosaaso, isagoo u mahad celiyay bulshada iyo mas'uuliyiinta gobolka Bari soo dhaweynta ay u sameeyeen. waxaa sharaf weyn ah in maanta lagu soo dhaweeyo magaalada Boosaaso anigoo u tartamaya xilka madaxtinimada ee Soomaaliya. runtii waxa ay tahay maanta maalin aad u farxad badan in magaalada Boosaaso safarkaygii ugu horreeyay markii aan ka soo tago magaalada Muqdisho aan jeclahay gobolada Soomaaliya inaan ku maro, inaan ka bilaabo magaalada Boosaaso oo si gaar ah saameyn igu leh. magaalada Boosaaso oo lagu yaqaano midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeed, sida maanta ay soo dhaweyntan uga qayb galeen waxay muujinaysaa siday ugu heelan yihiin in qarankii Soomaaliyeed uu mar kale tacgihiisa ku istaago. waxaan joognaa waa xeebtii u shisheysay Soomaaliya ee badda cas. runtii waa astaan qaran oo muujinaysa Soomaaliya inay mid tahay. waxaan aad ugu boorinayaa dadka Soomaaliyeed meel kastay wada joogaan inay gacmaha isqabsadaan, in waxyaabihii tagay laga gudbo, in colaadaha iyo meelaha ay ka jiraan la damiyo, in nabadda iyo wadajirka laga shaqeeyo, in dawladnimada iyo Soomaalinimada qayb laga wada qaato. waxaan aad ugu boorinayaa khaasatan dadka magaalada Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Bari kaalintii ay ku lahaayeen dib u dhiska dalka iyo hogaamintiisa inay u istaagaan. socdaalkani uu maanta ku yimid magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari musharax Saciid Cabdilaahi Dani ayaa qayb ka ah safarro uu ku marayo qaar ka mid ah gobolada dalka, kuwaasi oo uu ku sharaxayo musharaxnimadiisa ku aadan xilka madaxweynenimo ee dalka. Maxamed Bilegeele, Somali News TV.